diyaarad Turkiga keentay diyaaradii Muqdisho ay ahayd inaan qaadano marka war aad u naxdin badan loo sheegay oo ah in diyaaraddeena Muqdisho la kansalay. Assalaamu calaykum walaalayaal, waa aniga Shucayb Roy maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waa iga duwan yahay intaan video duubay waayo 16 sano ka bacdi ayaan waxaan u socdaa wadankayga hooyo Soomaaliya. ciida laba beri ka dhiman laakiin maanta waxay ila mid tahay maanta iyadoo ciid tahay camal oo kale ayaan dareemaa. hadda London aan joogaa airportkaan u socdaa. safarkayga waxa maanta i wado oo baabuurkiisa aan saaranahay walaalkay Khalid Cabdirasaaq Nuure. ay Khalid hal ilo. Assalaamu calaykum, waa idin salaamay. ninka Shucayb waxa waaye wadamada uga soo tagay Soomaaliya wadamada u soo galaba muusa tagin marka anaa sanad walba baxo oo wadankii tago marka wadankiisa ku ogeyd ma aha wadanka waa ka shiday haba waxaad tagi doontaa Muqdisho shidan Muqdisho aan caadi ahayn oo aan ku soo raaxaysan doontaa. waxaan ku leeyahay niyow safar salaama. waa markii ugu horeysay muddo ka bacdi safar 12 saac oo dheer aan gali doono marka safar xiiso badan ayuu noqon doonaa marka waa duubi doonaa ilaa xamar aan ka tagi doono. diyaaradda hadda soo fuulay diyaaradda Turkish Airlines diyaaraddan Turkiga Istanbul ee wadaa ka bacdi midda Soomaaliya u socoto insha Allah ku bedeli doonaa marka nin nasiib badan in ahay maadaama 16 sano wadankii aan tagin waxaan ka walwalahay safarkaas soo noqon doono laakiin nasiib wanaag waxaan helay Soomaaliyeed oo mataqaanaa ma sha Allah dhalinyaro ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaad ninkan Shucayb maanta is qabanay diyaaradana ku wada kulanay wuxuu ii sheegay inuu dalka muddo 16 sano ka maqan yahay maadaama aan sanad iga soo wareegatay ana maanta gacanta ku qabanayo oo dalka geenayo xamar shukulaatan ku soo dhaweynaya. waxa laga sheekay karo ma ahan waxaan hadda nimaanay diyaaradda Turkiga keentay diyaaradii Muqdisho ay ahayd inaan qaadano marka war aad u naxdin badan loo sheegay oo ah in diyaaraddeena Muqdisho la kansalay anakoo ah xogaa 5 Soomaali hadda ku soconaa iyo gabar cadaan ah ugu jirtay 7 qof dadka yar ahayn aarana waxay u kansaleen marka waxaan ku qasbanahay inaan magaalada Turkiga aan bila Brisi xano habeen dambe saacadan saq dhexe ee bixaa leeri marka wala wax murug la waaye because inaan maalinta ciida xamar aan ku tukanay balanta ahayd laakiin umayma in ay noo suurto galayso marka waa arkaynaa bal xal wuxuu ku dhamaaday hadda waxaan sugeynaa qoladii hotelka la geeliyay sugeynaa waa la socodsiinaa wixii akhbaar hadda waxaan ku soo noqday isla airportkii xalay aan ka tagnay kolleyto aniga markii ugu horeeydo oo diyaaradda ay kansalmato marka xalay bas aan qaaday wuxuu na geeyay hotel oo aad u fiican aan la geeyay oo 5 star ah marka maanta oo dhan waxaan joognay Istanbul anigii asxaabteyda yar aan Saciid kolleyto waa aragteen magaaladan galnay marka magaaladan soo baashaalnay galabta hotelka iska dhimaana marka waa arkaynaa kolleyto diyaaraddeena caawa haddii sida xal kale loo kansalo iyo haddii ay noo suurto gasho in aan berri kolleyto salaada ciidda waana dhaafay laakiin at least in aan ciiddii xataa haafka dambe aan dhinacaan ka ciidno. Saciidow haye niyo xal waana la baajiyay diyaaradda xal baaqatay oo la yiraahdo xamar wax diyaaradda kama degi karaan niyo maxay kula tahay sheekadooda waa la soo ogaaday waxa waaye tiradayna way yareed صح saas awgeed baynu qaadi waayeen. laga sheekay karo ma aha gadaasheeda gooladeeda dhammaan Soomaaliya ay ku jirto markii ugu horeysay 16 sano dad Soomaali boqolkiiba 99 aan gaar soo raacayno aniga waa weli Muqdisho tegin ilowga hadda oo sii haya calsha farxadda hadda ay u bilaabatay
hadda waxaan dhex saaranahay diyaaradda dhexdeeda marka waxaan isku baranay wiil dhalinyaro ah oo la yidhaahdo cumar wiilka markaan sheekaysanay isku qisaan wadaagnay sideedoo kale ayuu wuxuu socdaa 16 sano ka bacdi boos والله ما شاء الله ما شاء الله dareenkaaga sheekee ما شاء الله ما شاء الله عجائب 16 sano دحي توصل لودين goormee kugu dambeeyday xamar ka soo tagtay سديد دينير kadib intee aad كنت بإثيوبيا تجي إثيوبيا على صوت شو هذا كنت هذا يسوق suuna amaad furusubixii xamar ka degayna والله الله يتقى عجائب طلقنا شو منو والله أقام حبي سنة والله waa cajiib ah qisadan oo 16 sano ilaa London aan soo waday hadda markii diyaaradda xamar socotay aan soo fuulay isku kursiga aan fadhiyo aan xasla fadhinaa yarkan 2000 koro ku dambeeyay محمد ninka 2008 xamar ugu dambeysay aniga 2007 ay ugu dambeeyay koleeto dhamaadkii marka ma sha Allah koleeto والله إني ما أستعيذ لين ما لي إذن وهذا ما أنت لكن بيعوز walaalayaal alxamdulillaah ilaahay Soomaaliya wuu keenay muuqaaladaas ka aragtaan maalin ciida aan imaaday saacadan waa 4 saac iyo 50 daqiiqo meelahaas waaye marka aad aan u faraxsanahay intaan videogan soo gaartay iyo intii mataqaanaa intaan soo daawataba aad aan ugu mahadcelinaa wuxuu ahaa safar mataqaanaa layaabkiisa wato ahaa aad u dheer videogan intaan ku soo gabagabeynayna